Puntland hooyadii federaalka Soomaaliya 24 sanadood kadib aasaaskii Puntland weli waxay taagan tahay hab wax qaybsigii lagu dhisay 1998 kaasoo ahaa nidaamka qabiilka ku dhisan madaxweyne kaste oo la doortay 24 sanadood ee jirtay Puntland waxa uu ballan qaadayay inuu horseedi doono in xukunka iyo dawladnimada la daadijiyo oo shacabka xaq u leh ka talinta masiirkooda gacanta loo gelin doono nasiib daro sheekadaasi tii cali sheeka macaane ayay noqotay taasoo shacabka dhaxal siisay inay ka aamin baxaan madaxdooda heer quusi ahna gaaraan haddaba waxa isweydiin mudan waxa hortaagan in laga hayaamo nidaamka qabiilka ku salaysan kaasoo horay u soo burburiyay qarannimadii Soomaaliyeed iminkana qarka u saaran inuu burburiyo dawlad goboleedyada dalka ka jira wadamada burburka dawliga ah ku yimaado baahiyo bini'aadanimo iyo kuwa colaadeed ay haleelaan waxaa jiro hay'ado gudaha iyo mid caalami ah oo ka macaasha kuna qaraabta dhibaatada hadba dalkaasi iyo ummadaasi ku habsatay burburkii dawladnimo ee 1991 ka hor hay'adaha caalamiga ah ee dalka ku sugnaa waxay ahaayeen kuwa cayiman oo u badan kuwa la macaamilooda wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawliga ma jirin waaba haday jireen wax hay'ado bini'aadanimo cilmi baaris ama horumarineed ee dalka gudihiisa ka jiray oo maamulkiisu ay gacanta ku hayeen howlwadeenna Soomaaliyeed haddaba burburkii dalka ka dhacay waxa uu fursad u noqday hay'ado badan oo caalami ah kuwaasoo sidii daadkii ugu soo fatahmay dalka Soomaaliya waxaa sidoo kale weheliyay wadamada dariska oo qandaraas ka dhex arkay dawlad la'aanta Soomaaliya wadamada Kenya, Ethiopia, Imaaraadka Carabta ayaa dhammaantood maslaxadooda ka dhex arkay in burburka Soomaaliya si daba dheeraado bulshadu kala irdoodo qabiil ku xoogaysto dawladnimaduna wiiqdo dhibaatooyinka laga dhaxlay burburkii dawladeed waxa ka mid ah in haldoorkii hanaanka dawladeed wax ka yaqaanay iyo aqoon-yahankii dadka indhaha u ahaa ay dalka ka baxeen ama lagu fuquuqayo qabiilka ay ka soo jeedaan taasoona dhaxal siisay inay hoggaanka dalka qabtaan kuwa wax walba foosal ka dhigay hadday awoodi lahaayeen in ay iibsadaan shacabka way iibin lahaayeen haddaba 24 sano kadib aasaaskii Puntland maxay tahay caqabadda hortaagan in ay si buuxda u hirgasho doorasho qof iyo cod ah saddex degmo ayaa ilaa hadda laga hirgeliyay doorasho qof iyo cod ah isla markaana yeeshay golo deegaan iyadoo ay jiraan siyaasiyiin mar walba ka biyadiido hanaanka doorashada qof iyo cod ah in Puntland iyo dhammaan Soomaaliya laga hirgeliyo oo ugu horeeya madaxweynaha hadda xilka haya Saciid Cabdullaahi Dani guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa wax ka bedel ku sameeyay 37 degmo oo uu dhawaan wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa u gudbiyay guddiga doorashooyinka 37 degmo ayuu sheegay wasiir Juxa inay u diyaarsan yihiin hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ah ee golayaasha deegaanka Puntland si shacabka ay u soo doortaan xubnaha ku matala maamulka heer degmo guddiga ku meel gaarka ayaa 21 degmo ku soo koobay tiradii 37 degmo ee uu ku wareejiyay wasiir Juxa iyadoo 16 degmo ee la reebay ay sheegeen inaysan macquul ahayn in hadda lagu qabto doorasho deegaan duruufo jira awgood guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa wararku sheegayaan in maalmaha soo socda shaacin doona dhimis lagu sameeyay degmooyinka horey wasaaradda arrimaha gudaha u shaacisay gaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku adkaysanaya in la dhameystiro doorashooyinka golayaasha deegaanka ayadoo dadka dhaliila siyaasadiisa ay ku eedeynayaan inuu ka leeyahay barnaamijkan qorshe muddo kororsi ah Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiin ka biyadiiday in doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya ka dhacdo ma kula tahay in ay daacad ka tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah